waxaynu rabnaa inaynu qaada dhigno arinka ah banaanbaxa magaalada Muqdisho lagaga dhawaaqay ma yahay mid xaaladan macquul ah ama ma yahay mid wacyiga ama waqtiga lagu jiro suuragelinaysa in uu dhaco. run ahaantii waxaan la xiriiray dhaqaatiir ku sugan magaalada Muqdisho kana howlgala qaar ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho iyo shacabka Soomaaliyeed oo arintan ka dhiidhiyay iyadoo ay ku dhawaaqeen golaha musharaxiinta mucaaradka dowladda Soomaaliya in uu qabsamo banaanbaxa waxaa ka muhiimsan badbaadada shacabka inkastoo cudurka COVID-19 uu ku faafayo dhammaan gobolada Soomaaliya. waxay ahayd markaan oo kale wacyigelin bulsho in la sameeyo in lagu taageero dowladda in wasaaradda caafimaadka lala shaqeeyo oo lagula garab istaago wacyigelinta bulshada in la sameeyo kala fogaansho 1 mitir ah in at least dadka la wacyigeliyo ma ahayn maanta in banaanbax dadka lagu baraarujiyo oo la dhaho waxaan sameynaynaa banaanbax oo ognahay caqabada wadanka maanta ama marxaladda wadanka maanta uu marayo iyo cudurka faafitaanka cudurka. waxaynu ku soo dhaweynaa Tutoresa Naciima. Tutoresa ku soo dhawow. waa mahadsantahay walaasheen Naciima waa ku dhawaad barnaamijka run ahaantii wadanka xaaladku uu ku sugan yahay koronihii wuu sii faafay inka dhaqtar ahaan anaga cases badan ayaan aragnaa maalintii qaar waa dhintaan qaarna way caabuqii ay la liitaan waxaan ugu baaqayaa bulshada Soomaaliyeed inay ku dadaalaan sida ay uga hortagi lahaayeen cudurkan sidoo kale inay gacmahooda dhaqdaan alcoholihii sidoo kale haddaysan awoodin alcohol inay saabuun ku dhaqdaan haddii ay helaan sidoo kale qof walba oo magaalka soo aado inay af xirkiisa oo soo qaato oo xirto sidoo kale meelaha ciriiriga ee ku jira inaysan aadin sidoo kale waxaan ugu baaqayaa bulshada Soomaaliyeed inaysan salaanta yani qofka aad la shaqeynaysid aadan salaamin meel hadaa taabatid misalan inaad faraha dhaqdid markasta oo ku dadaashid oomo ku dhaqdid ama alcoholihii aad ku dhaqdid hadaa helaysid. waa dhawahay walaashay waa mahadsantahay waa anigoo ka mid ah dhaqaatiirta magaalada Muqdisho hadda cudurka zaaid ugu soo batay magaalada Muqdisho asoo waliba dhammaan Soomaaliya asoo waliba wajiyaal kala duwan wata sidii hore ka halis badan waxaan ku dhahaa marka bulshadana waxay u baahan tahay moor wacyigelin badan ay u baahan tahay in la wacyigeliyo loo sheego marka aniga waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed iska ilaaliyaan cudurka waxaa badan khasaarinaysa insha Allah waxyaalaha loo baahan yahana waxay tahay in yani dadka ay yareeyaan kulamada tirada badan sida banaanbaxyaasha meelaha aroosyada hoteelada la iskugu imaanayo iyo meelaha shaaxyada lagu cabo everything oo yani meel walba oo saameyn ku yeelan kara inuu cudurku ku faafo maxaa loo baahan yahay qof walba inuu sameeyo waxaa loo baahan yahay qof dadka inay gacmaha iska dhaqaan inay isticmaalaan face mask in la kala durko yani sidoo kaleeto in oo meelaha waxaan ku dhahdaa oo sida isbitaalada jaamacadaha iskuulaadka yani in la buufiyo oo la hagaajiyo yani inta la dadaalo insha Allah sida yani lisaga ilaalin lahaa cudurkan Ilaahay ummadda muslimiinta ha ka ilaaliye midda kaleeto wadanka waxa ka jiro siyaasad yani la isku haayo insha Allah ha ka fakiraan masiirka ummadda Soomaaliyeed yani hala joojiyo isku soo baxyaasha la ilaaminayo Ingiriis waxaan ka codsanayaa in yani waxaas la iska dhaafo ka suuxay badinayaan halista iyo waxaan ku dhahdaa khatarta ee leedahay cudurkan insha Allah waxaan leeyahay Soomaaliya dadaala halis weyn lagu jira insha Allah Ilaahay wada badbaadsho wadankana Ilaahay ha noo jibiyo. Wassalaamu calaykum.